هذا ما هو يرى إلى هذا سوق الميسر كوجه عبد الرحمن ولد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتأل بقى والله سيبنا تذكر بقى قرط سأوس وجبيني بين الدكتور لكن أنا ميكروفون كوامي اللي يجي قالوا المصدر وحترتها waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa mudane professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaan ku leenahay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas wixii aad ummadda u qabatay wanaag iyo horumarka aad soo gaarsiisay Soomaalida mooyaane caalamka oo dhan ayaa laga ogyahay mana aha mid aanu kaaga mahad celinayno kelmadu xaq jirta carabiga la shukran cala alwaajib la yiraahdo waa wax waajiba muqaddas kugu ah in aad Soomaaliya ka soo saartay dhibaatadii iyo dadkii baabiinayay aad gacanta ku dhigtay adiga iyo gruubkaaga taasna kaaga mahadnaq uguma adbaanin ruux Soomaaliya iyo ruux ajnabi intaba wixii aad geysatay waxa uu geysatay wajiga Ilaahay ayay xaqiis ku jirtaa intaas waxaan uga baxayaa wax qabadkii aad wadanka u qabatay midda kale waxaan rabaa saddex qodob oo gaagaaban oo halkan masawirka Cabdiweli ku hoos yaala in aan dadka taabsiyo waa Ingiriis bay ku qoran tahay waxa fiicneed inay Soomaali ku soo qoran maadaama Soomaali imanaysa meesha waxa ku qoran qodobo badan Cabdiweli hoosteeda ay ka mid tahay sinaan iyo cadaalad iyo xuquuq yaa ku hoos qoran saddexdaas qodob dadka ay qusaysa ayaan ka mid ahay maadaama aan gudoomiyaha beesha Gabooye ee Norway aan ahay saddexdaas qodob si khaas ah ayay ii taabataa waayo waa saddexda qodob oo aan u baahanahay meel walba iyo goob walba ay Soomaalida isugu timaado bal inay is xasuusiso sida suuradda wal casr isku xusuusiyo oo kale in la isku xusuusiyo ay muqaddas tahay horta haddaan ka soo bilaabo dhinaca sinaanta wax sinaan la yiraahdo inaan jirin mudanahan waa og yahay Soomaalida meesha joogtay waa og oo kala sareyn ay wili Soomaaliya taalo mid cadaaladana waxa la maqlayayba xilliyadii dawladda hore jireen qofkii la qabto oo qasaas lagu fulinayo waa qof Gabooyaha oo aan awood lahayn marun baan masawaabeen Allah yaclamu rasuul وهذا واحد جواب يقول ده واحد جواب من ذكر حقوقنا حقوقنا حتى واحد تعبتي أي كشيء أو وجود بيسي مدنها عبدالولي محمد قاس أبو ماتين قف موادن وصومالي إلا ودون المتردو دباتو ينكي يبربركي ووطن كسو ساري ودكي كورين يكسو ساري وايد لكن مدة أن دولتي ورئيس الوزراء وها أن حوجا يكون مسؤولنا بواحد تهاي عبدالولي وحو مرة وضم بدن وحو كان حريرية بدن كان متهاي حرير كي إن أرديت الصومالية وحبرشة لغسيو وضن كتركيا سكولرشيب كيف بدي أنا ولا حريرني دتي سكولرشيب كلا قاضي دتي معمولي أن وحاي مقالة أون هو مقالة مهاني هل أرديت وجبويا إن أنا موجود در دتي دولتي سكلية معها دولة كرسي مكتئة وحاكم صدق دولة فدرال يرادو وحيد ترتسدح بقول يدور أرضي أو بوحسي كل أرضي كتير أرضي بي عبدالولي محمد قاسو بالله إن أيو درام وضع تركيا سدح دي بقول أو دولة فدرال كي ترتينا كده مركي على حد ما نمكوي كوجرة إن برلمان الصومالية إن وحنا يشارك إن أنا كوجرين هل أرضي أو جوية مركب وحنا كده وحنا عبدالولي محمد علي قاس قعد سنة يعني أصلا حرير كيسي وطن رئيس الوزراء هرنا سياسة أنا كويلو كوجرو وحنا قعد سنة يعني بالقرب كاس عدة وكلك عشرة مع كلك عشرة إن باشا إن ساحة وحبرشة الوسر اليوم إن ده كان إن باشا جوية واحد وحقق بحكرام كبير وعيقه وحلقاره نكي هذا هل كان يقول خطبته وحش شيء عبدالولي محمد قاسين وتجي توله هوية أي دكتة أن توله هوية وما تجي عبدالولي هوية ملح وما تجي توله أي دكيين
beesha gabooye xaasatan qabiilka la yidhaahdo Madhibaanka waa tuulada magaceeda la yidhaahdo Xero Jaalle uma uusan tegin hooyadii inuu booqdo oo wuxuu u tegay beesha gabooye dhibaatada ay qabaan tuulada Xero Jaalle ay ku qabaan inuu soo geeyo هنا أركي حقيقي وحو أركي لبا قل أو محايا إسبتال أهان بسن وحونا قبل قاضي حسابتي سخاص كأخ إنه هو نسي إسبتال وحانا كولا هرلاني ريزي الوزارة بل إسبتال إنا نكبر دلو إن أنا أقرب قاضي نددك إسكول واي وحو سؤال كي إنا نميش إسكول جري مركب وحانا ربنا إن أنا عبدولي وحان كعود سنة يا بلانكي وكسو قال إنه فليو ووضد وقعانك بسوق وفليو أنا كقدوميها ولا قرب تاجنا هاي إن عم باشي اللي حرير وضم والبيت جوجل سيان ولا قبل الله المشروع عاص مصابة القاضي بروفيسور عبدولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن عراد همسور آد معي ليش يقول ما قولي مركز آد إيتها وتيصوتها واحد شراء ودبع يكهله Soomaaliya runtii hadii problem uu jiro social problem Soomaaliya haduu jiro arinta uu ka hadlayo marka waxaan isleeyahay marka qaarkood waxaad oranaysaa Soomaalidu marka sida ay dadka yaani uu ka hadlay ay wada dhaqanto waxa dhici karta in cadaalad darrada ay tirsanayaan iyo dhibta gaartay carakati Ilaahay loogu carooday dhibta Soomaaliya gaartay inay taaba dhici kartaa marka hadda dawlad baa dhalatay dawlad yactaan oo Soomaaliyeed ku meel gaarka laga baxay waxaan isleeyahay marka waxyaabo badan waxa jira dawladdu ay sameyn karto oo dadka cadaalad darrada lagu soo sameeyay waqtiga dheer inkastoo cadaaladdu relative tahay oo dad badan cadaalad darrada ka sanayaan laakiin haddana cadaalad darrada ay tirsanayaan waa mid aan wada ognahay kulligeen weeye oo wada ogsoonahay marka in dadkan dawladda Soomaaliyeed ee hadda jirtay toos socotaba loo sameeyo barnaamijyo gaar ah sida mesela hadda wadamada aan ku noolahay ama Mareykanka ku noolahay dadka madow oo la soo gumaysan jiray dhibta soo gaartay waxa jira waxyaabo lagu tixgeliyo oo gaar loo siiyo affirmative action programs baariyadan oo maxay tahay in markii waxbarasho dibadda uu ka hadlayay scholarship-ka loo qoondeeyo koota gaar ah la siiyo in shaqada dawladda shaqaalaha dawladda koota gaar ah la siiyo in saraakiisha ciidamada koota gaar ah la siiyo in مثلا dadka waxa weeye waxyaabaha مثلا dad u fiirsato dadka Soomaalidu ay dhibaataysay waxa ugu weyn waa dhaqaale miyigan xoolo kuma haystaan magaalada xoolo kuma haystaan marka waa soo economic problem weeye marka si taa loo xaliyana مثلا in la siiyo qandaraasyada dawladda oo kale sida مثلا la siiyo koota gaar la yiraahdo 20% qandaraaska soo dawladdu bixinayso dadkaas la siinaya si dhaqaale ahaan ay u soo kabtaan oo ay ummadda ula mid noqdaan marka waxa weeye waxyaabo badan oo dawli ah oo waxa jira dadku ay sameyn karaan laakiin haddana also waxaan u baahanahay bulshada Soomaaliyeed laftigeedu wacyigoodu isbedelo runta ay arkaan cadaaladna Ilaahay tuso dadka Soomaaliyeed oo la siman oo dhibaatada laga fududeeyo aad ayaan u jeclaan